أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسينا وحاو كبلاميا آيات اللحدنات كنمد سورة الكهف waxaynu ku soo aragnay suuraddan suuratulkahf qisas aad u layaab badan rabbina subxaanahu wa tacaala uu inoogu tusaalaynayo xikmad iyo murti iyo mucjisooyin aad u fara badan intaba waxaynu caawa halkan ka gudagelaynaa qiso aad u cajiib badan qisadaasoo xambaarsan mucjisooyin iyo xikam iyo waxyaalo aad u fara badan oo caqli celin badan ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu tilmaamay waa qiso inoo raaridaysa amba ina fahansiinaysa allah subxaanahu wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa iyo rabbi subxaanahu wa tacaala kownkan siduu u maamulo intaba waa qisadii nebiyullaahi muusa iyo khadir nebiyullaahi muusa iyo khadir qisadooda halkan lagaga warramayo waa qur'aanka kariimka ah halkaa unbaa lagaga warramaa khadir iyo muuse aayaadkan unbaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qisadooda inoogu bayaaninaya o inoogu iftiiminaya waa qiso halkanuu ku soo aroortay qisadan markaynu tilmaamayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu cabbirayaa ereyo dhowr ah ereyadaa waxaa ka mid ah nebiyullaahi muuse waxaa wehelinayay fataah axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixaynkaa inoo caddaynaya wa-aya wiilkaasi waa nebiyullaahi yuushac ibnu nuun weey waxaa kaloo halkan aayaddu ay tilmaamaysaa inuu nebi muuse la kulmay oy war isdhaafsadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala axadka uu qur'aankiisa ku tilmaamaya inuu yahay cabdan min cibaadina aataynaahu raxma cabdigaana waxaa inoo caddeeyey axaadiista rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhim oo waxa weeye waa khadir markaa markaynu leenahay qisadii nebiyullaahi muusa iyo khadir waxaynu ka dheehanaynaa amba aynu kala soo baxaynaa waa aayaadka qur'aanka ah iyo axaadiista nebiga ka sugnaatay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intaan markan ka tagno halkan waxaan ku arki doonnaa qiso aad u layaab badan qisadaasi waxay leedahay xikam fara badan waxay leedahay fawaa'id waxay leedahay duruus laga baranayo waxay leedahay umuur isweydiin leh oo markaasi dhowr ah oo umuurtaa isweydiinta le oo ah muxuu ahaa khadir miyuu noolyahay mise wuu dhintay fataagani waa ayo nebiyullaahi muuse iyo addoonkani halkay ku kulmeen axkaamna way ku jirtaa xikam badanna way ku jirtaa marka innagu intaynu laftiga aayaadka aynu dul marno ayaynu isdul taagi doonaa wixii ku jiray oo dhan suuradda in sha allahu tacaala inta ilaahay naga karsiiyo laakiin bilowga maadaamay waxaynu ku bilaabaynaa darsigeennan hore
sida aayaadkiina laftigiina inoogu socdo aynaan waxna uga tegin meelaha ugu muhiimsan aynu u tilmaano caawa darsigeenna hore waxaynu ku qaadanaynaa qisada inaynu dul marno aayaadka iyo inaynu qisadani sababtii ay ku timid xadiiskii inaynu akhrino markaa rabbi subxaanahu wa tacaala qaala tacaala rabbi wuxuu leeyahay subxaana wadkur xusnabi allow id wakti dadkan u sheegoo ku waani waxaad dadkan u sheegtaa ood ku waanisaa id wakti qaala uu yidhi muusaa nebi muuse lifataahu wiilkiisii u adeegayey ee u khidmaynayey uu ku yidhi ee yuushac ibnu nuun ahaa la abraxu ka suuli maaye inaan ahay mid socda laa abraxu ka tanaasuli maayo ka joogsan maayo ka suuli maaye inaan ahay asiir mid soconaya xataa abluqa ilaa intaan gaadhayo majmaca albaxrayn labada biyo halkay ku kulmaan xataa abluqa ilaa intaan gaadhayo majmaca albaxrayn labada biyood halkay ku kulmaan aw amaba amdiya aan soconayo xuquban waayo badan guyaal badan saban dheer aan soconayo falamaa markii balaqaa ay gaadheen majmaca baynihimaa halkii kulminaysay labada badood nasiya waxay halmaameen oy iloobeen xuutahumaa kalluunkoodii ay quudanayeenee jicsintiiyo cuntada u ahayd ayay iloobeen faatakhada wuxuu yeeshay kalluunkii sabiilahu waddadiisii filbaxri badda dhexdeeda saraban duleel iyo jeex iyo god buu ka samaystay buhi rabbi subxaanahu wa tacaala falamaa markii jaawasaa ay gudbeen qaala wuxuu ku yidhi lifataahu wiilkiisii wuxuu ku yidhi khidmaynayey aatinaa inoo keen hadaa'anaa qadadeennii inoo keen cuntadeennii inoo keen kalluunkii aan sidannay een cuntanimo u sidannay balkeen aan cunne laqad waxaa dhaba laqiinaa inaan kala kulannay min safarinaa socotadeennan iyo socodkeennan amba safarkeennan haadaa kani ah nasaban daal iyo rafaad ayaan kala kulannay rag daalay baa nahay ee bal aynu nasanno ee qadadii inoo soo dhig buuri kalluunkii keen intaa markuu yidhi qaala wuxuu yidhi wiilkii yaraa ara'ayta bal iiga warran id wakti bal iiga warran inna ma xasuusanaysaa aweynaa aan u dumannay aynu hargalnay ila asakhrati sallixii amba dhagixii weynaa fa innii anigu nasiitu waxaan iloobay alxuuta kalluunkii waan iloobay inaan kuu sheego qisadii iyo wixii uu sameeyey iyo dhacdadii halkaa ka dhacday waan halmaamay wamaa ansaaniihu imana halmaamsiin ila shayطaanu shayطaan mooye wax kalena waxaa iguma wacnayn an adkurahu inaan xuso oon kuu sheego waatakhada wuxuuna yeeshay muusow kalluunkii sabiilahu jidkiisii wuxuu ka yeeshay uu badda ka dhex galay filbaxri badda dhexdeeda cajaban yaab wax laga yaabo iyo amakaag ayaa halkaa ka dhacay buuri waa argagaxsanyey waa ninkii khidmaynayey waa adeegihii nebi muuse dee wixii yaraa ay cunayeen buu ka dayacay oo uu lumiyey calaacalkii buu sababtii u sheegay wuu yar didsanyey isagu laakiin wixiiba iyo karkii iyo culayskii iyo hamigiiba nebiyullaahi muusa ka faydaya qaala wuxuu nebi muuse daalika kaas kalluunkaa fakaday ee aad ilowday ee la waayey maakii weeye kunna aan ahayn nabqi kuwa raba waxaan intaa u socotaynaynay een u guuro gelaynay aynu jidkaa dheer u soo marnay intaabaaba ahayd halkaa kalluunka lagu waayayo halkaynu u soconnayba waa halkaaba waxbay nagama xumaan fartaddaa way laameen calaa aahaarihimaa raadkoodii bay ku laameen buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala qasasan iyagiioo raad guraya oo raadkoodii dib iyagiioo u raad guraya ayay halkii ku laameen buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala
halkaa markay ku laabmeen ay dhagixii gaadheen iyo halkii kalluunku ku lumay fawajadaa waxay heleen cabdan addoon buu leeyahay rabbi min cibaadina addoomaha iyaga ka mid a halkaa ka heleen buu rabbi subxaanahu wa tacaala haddaba waxaan arkaynaa markaasi aayaadka laftigoodu waa sariix weeye ilaahay baa ka warramaya oo caddeeyey intaa rabbi inooga warramay war inoogu filan wixii wax inoo taraya oo dhan ba ilaahay uu inoo sheegaya waxaan ku dhammaystiraynaa axaadiista nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaan soo aragnay imanka nebi muuse inankiisaga u adeegayo wada socda sahay bay siteen dhexdii bay jid dheer bay galeen muuse meel buu ku dhaarsan yahay inuu gaadho uu markaasi waxa weeye u sii jeedaa halkii intaan la gaadhinba sahaydii way ka luntay maray ka luntayna uu gudbayno dareen baa galay dib buu u soo laabmay halkii buu ka helay addoommaha ilaahay ka mid a haddaba say warku inoogu caddaado rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayaa axaadiistiisa inoogu iftiimiyey qisadana waxay ahayd nebiyullaahi muuse ubaya ibnulkacab baa wuxuu yidhi nebiyullaahi muusa calayhi afdalu الsalaatu calaa nabiyina uu sara kacay isagoo sidii u wacdiyayey qoomkiisa bani israa'iil u wacdiyayey ayuu sara kacay waa wuxuu wacdiyayaa muusa bnu cibraan bani israa'iil buu wacdiyayaa wuu khudbadeeyey khudbad xeel dheer oo dadka raadaynaysa ayuu akhriyey ilaa intay ka ilmeeyeen ay ka wada ogeen yacni waxaa lala dhacay ereyadii iyo siduu u hadlayey iyo codkarnimadiisii iyo wax iftiimintiisii iyo siduu ugu dhigdhigayey iyo siduu wax ugu tusaaleeyey ilaa intay raadaysay ay wada ooyeen oohin laysku daray nin baa sara kaca wuxuu idhi muusow wuxuu ka yaabay muuse cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo siduu wax u tusaalaynayo siduu wax u tilmaamayo iyo hadalka siduu u helayo iyo hadal toosidiisa iyo codkarnimadiisuu ka yaabay markaasaa intuu sara kacay buu idhi muusow ayunnaasi aclam dadka yaa ugu cilmi badan buu idhi muusow dadkan dhulka ku nool ayaa ugu aqoon badan buu idhi nebiyullaahi muusa waa ululcasmigii weeye waa rasuul waa nebi ilaahay intuu u waxyoodu weliba diray weliba waa kariimullah ilaahay isaga looguma soo dhiibin malag war ilaahay baa isaga la hadlay nebiyullaahi muusa waxoogaa wuu degdegayoo intuu fududaaday ayaa wuxuu yidhi de aniga isaguu xisaabtamo kolba hadduu yahay kaliimullah nebigii ilaah soo dirana uu yahay garwadeenkii ummaddanna uu yahay dee intanbuu ku xisaabtamay wax kalaba kuma xisaabtamin intiisanoo wuxuu yidhi anaada ugu cilmi badan buu ilaahaan ugu waxyoodaay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu canaantay nebiyullaahi muuse waxaa nebiyullaahi muusa lagu canaantay sidee buu isagu intuu qaraar u qaatay uu yidhi anaa dad ugu aqoon badan ee uu cilmiga ugu celin waayey ilaahay subxaanahu wa tacaala muu rabbi waxyi ka sugu yidhaha rabbow horta yaa dadka ugu cilmi badan isagiiuba fududaado markiiba uu ku dhuftay ilahay wuxuu idhi muusow hor lagaa cilmi badiyaa baa lihi ana addoommahaygu addoommahayga ka mid ah oo bimajmaci albaxrayn halkay labada biyo ku kulmaan jooga ayaa aclamu minka adiga kaa aqoon badan baa lihi muusow looma qarinba addoonkaabaa adiga kaa cilmi badan waxaanad ogeyn buu ogyahay baa lihi nebiyullaahi muuse markiiba wuu gartay inuu fududaaday oo uu sidii habboonayd uuna haleelin markaasaa wuxuu idhi yaa rabbi fa kayfa lii bihi rabbow addoonkaa iga cilmi badan aan cilmigu haye kaga biirsada intaan haye rabbow sideen u heli karaa sideen u gaadhi karaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu idhi muusow waxaad qaadataa kalluun qaadaa la yidhi muusow kalluunkaa waxaad ka dhigataa sahay kalluun haddii biyaha laga soo saaro dhaftu way ka baxdaa soo maha ila ilaahay awoodihiisuu ina baraya inuu ilaahay yahay facaalu limaa yuriid siduu doonuu yeelaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasaa waxaa la yidhi kalluun qaado sahay ku ah
waxaad ku riddaa fi miktal salad amba simbiil ku rid baa salad amba simbiil ku qaado oo ku rid kalluunka sido isaga sahayo halkaad kalluunka ku weydo ee adiga kalluunkaasi aad ku kala luntaan halkaas uu ninkaasi jooga baa nabiyullaahi muusa wuxuu soo qaatay sahaydi wuxuu soo kaxaystay yuushac ibnu nuun inuu xadiiska caddayn inuu yuushac ibnu nuun yahay yuushac ibnu nuunna waa nebi xagga dambe inuu adilada axkaamta markaynu tilmaamayno inuu adilada wada tilmaami doonaa insha allahu tacaala yuushac ibnu nuun ayuu kaxaystay si ugu khidmeeyo weliba gacanyarihii nebiyullaahi muusuu ahaa ninkii bani israa'iil muuse ka reebayna weeye yuushac ibnu nuun ayuu kaxaystay waa la isa soo raacay sidii loo soo socday baa badda xeeligeedii baa la yimid dhagax weyn amba sallax weyn waxaa tiraahidba ayuu halkii ayuu nebiyullaahi muuse iyo isagii ay hargaleen soo hargalka lama garanayo dhulkii wuu kulaaday waa dhul bannaan waa xeeligii geeda kama muuqdaan dhagaxan weynee sallaxaa la harhsaday halkaa baa loo hoydoo la hargalay markii madaxa dhulka la saaray nebiyullaahi muuse uba waa hor u gamayba uu ka khuuriyo uu gamay yuushac ibnu nuun laakiin weli wuu soo jeedaa isagu wiilkii u khidmaynayay u adeegayey isagu wuu soo jeedaa ma seexan halkii siduu ha si axaadiistu tilmaamayso halkaa waxaa ku taalla caynulxayaat il biyo ahoo biyaheedaa wixii kaga soo duulaa wixii ay ku duulaanba ay noolaanayso biyihii yaraabaa ku soo duulay oo ku dhacay kalluunkii waabuu iska noolaadayba firfir waa kii saayida loo sitay yuushac wuu arkayaa waxa dhacaya wuu eegayaa nebiyullaahi muusena inuu kiciyo hurdadan macaan ka kiciyana uu ka xishoodo uu ka daayey kalluunkii buu eegayaayo intuu firfirtahaya noolaaday oo saxarihii socdo muxuu samaynayaa kalluunku arrimo cajiiba horta wuu noolaadayba midda labaad waa biyaha yare ku soo duulu sababtoodii wuu noolaaday ilaahay baa nooleeyey haddana saxarihii iyo bannaankii buu socdaayo wuu isrogrogayaa haddana ilaa baddii buu socdo wuu daawanayaa baddii halkii ugu sokaysay biyihii buu ku dhacay biyihii halkuu ka galayna wuu eegayaa intaa yuushac isagiyo waxaase wax u dhacayaan buu duubayaa wuu la socdaa muusena wuxuu leeyay dawaa markuu soo kaxun baad u warramaye isaga waxba ha kicin buu leeyay wuu eegay kalluunkii halkii uu badda ka galay ayuunbuu daaqad la furoo kale ka dhigay ilahay wuxuu ihi saraban egaf carabi waxaa jira nafaq iyo sarab nafaqu waa tineelka amba waa godka intuu halkana ka daloolo xagga kalena ka daloolo nafaq baa la idhaha laakiin godku markuu xaggana ka daloolo xagga kalena ka soo xidhan yahay saraban baa la idhaha saraban markaa wuxuu samaystay god sidii daaqadoo halkii uu ka galayna ka furan xaggii hoosena ka soo xidhan buu kalluunkii samaystay meeshii uu maray oo dhan biyihii way kala joogsadeen daaqad buu noqday kalluunkii halkaa buu ku dhacay wuu arkayaa markaas intaa markuu arkay waqti baa ka soo wareegay nebiyullaahi muuse wuu hurdo dhammaystay wuu baraarugay inakici wuhi waa la dhaqaaqay yuushac wuxuu iloobay inuu nebi muuse u sheego wuxuu dhucudha balkaale kalluunkiina ma jira sahaydiina ma jirto waa axbaaba ka dhacay meeshii cajaa'ib iyo mucjiso wuu noolaaday qariibna lama aha inuu waxaan arko oo dee adigu dahayey baad odhan lahayd malaha isagoo marka hore nebiyullaahi muusa buu la noolaayo ushu dhulka dhigaaba ay halaq iska noqonayso yani isaga wax qariiba lama aha ulba awalba noolaanayso mas noqonaysa soo maa markaa qariib lama aha aayaadkii iyo mucjisooyinkii uu la noolaa buu la nooliyey markuu saa u eegay isagiioo yaaban oo daaqadan biyihii uu ka furay iyo siduu yahay la yaaban iyo siduu u noolaaday iyo siduu u dhaqaaqay wuu iloobay nebi muuse inuu sheego waa la socday nebi muuse namari buui uu baraarugay waa la dhaqaaqay siduu nebigu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiskii saxiixayn ku jiray markii la socday nebi muuse wuxuu socday maalintii intii ka hadhay iyo habeenkii oo dhan buu socday nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faindalaqaa baqiyata yowmihimaa wa leylatihimaa maalintaa ay hargaleen intii u hadhay oo dhan iyo habeenkii oo leyl bay soconayay wuu socday uu nebiyullaahi muuse
ودذال ودذاليو أو أنت ودذالي إنه جاره هل كن كان علمي بدن لوجوه كعلم بدن بري مركي تاي بري مركي أي تاي أيام نبي الله موسى ويلكي سيبو كوري وارب القددي إنه كان كلهم كاني كبلن كو قديني سفر كان يصعد كان وان كو رفاضنا وان دالي مركز المفسرين تو waxay leeyihiin nabigu wuxuu yiri salawaatu allah wa nabiga yiri salawaatu allah wa salaamu alayhi xadiiskiisa wuxuu yiri walam yajid nas hatta jaawasa al-makan alladhi amarahu Allah ma dareemin badal nabi Muuse ila intuu dhaafay halkii ilaahay uu u diray halkii markuu dhaafay buu daal dareemay intii hore ma daalin markaas uu war balqadadii keenaynu sidanay waan daalay wuxuu yiri Muuse qadaa waa lagu qadalayay haddaad arki lahayd wixii dhacay markaynu dhagixii aynu hargalay soo ma garanaysid waa maalintii horade halkii ayuu kalluunkii intuu iska socday uu noolaaday uu badii galay ayuu god ka dalooshaday buu canaan buu ka baqay markaa in la canaatay nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi bas buu waaba kaan doonaynay in celi buu halkaa weeye halkii laynoo soo diray ila ilaahay baa yidhi halkaad kalluunkaa ku weydan addoonkaa ka helaysaa in celi buu oo si aynaan u qaldamin oo aynaan u lumin raadkii inoo gurbuur raadkii bay soo gureenoo dhagixii bay yimaadeen halkii markay yimaadeen wuxuu nabiyullaahi muuse ugu yimid fa idaa huwa musajjan bithawbin wuxuu ugu yimid ba addoonkii uu raadinayo intuu halkii iyagoo ay ka kaceen dhagixii intuu hurdo marana isku duuboo hilaabtay oo duuduuban ayuu dul joogsaday addoonkii markuu dul joogsaday khadir ayaa wuxuu yidhi wuu salaamay nebiyullaahi muuse wuu salaamay salaantuu salaamay waa maxay waa salaantii islaamka ayuu salaamay fasallama calayhi muusa faqaala khadir markuu nebi muuse salaamay baa khadar baa wuxuu yidhi wa annaa biardika bisalaam waa ya'bu salaantana xagee ka timi ilan kuma ogeyn biardika asalaam wa annaa biardika asalaam xaggay salaantani ka ahaatay kuma ogeyn yacni salaantani waa tii islaamka dhulkanna kuma ogeyn dad islaamo oo degan oon isaga ahayn markaa wuxuu yidhi salaantani xaggay ka ahaatay buu war xaggeed ka timid buu yidhi isalaamow kan isalaamayow man anta yaa tahay buu uu yaabay de xaggee salaantanna iga timid buu salaantan islaamku waa maxay dadkan islaamka ay weeliyaa markaasaa wuxuu markiiba yidhi yaa tahay ana muusa buu waxaan ahay muuse markiiba uu garto wuxuu yidhi ma muusihii bani israa'iil ma nebi muusihii bani israa'iil loo diray baa tahay markaasuu yidhi haa waxaanan kuugu imid sababtii uu sheegay waxaana ii kaa keenay si aan kaaga barto ilaahay wixii uu ku baray oo aqoon iyo hanuun ah inaan kula wadaago aanu imid buu arday inaan kuu noqdo oo wax kaa barto ayaan u socdaa markaasaa wuxuu yidhi khadir wuxuu ogayay nebi muuse isagu inaanay isku cilmi ahayn nebi muusena ilaahay waxyi buu siiyey isagana ilaahay waxyi buu siiyey shaqo isuma leh inay isfahmi waayaan buu dareemayaa markaasaa wuxuu yidhi muusow aniga ii sabri maysid ii xamili maysid ii adkaysan maysid wuxuu yidhi muusow sababtiina uu micneeyey ii adkaysan maysid waa maxay cilmi igama baran karaysid miyaa wuxuu yidhi muusow innii calaa cilmin min cilmi illaah anigu cilmi ilaahay cilmigiisa abaan hayaa laa taclamuhu callamanii adigu aanad ogeynoo ilaahay aniga ii baray wa anta calaa cilmin min cilmi illaah adna cilmi ilaahay cilmigiisaad haysaa callamakahu allahu laa aclamu cilmi ilaahay uu ku baruu kuu waxyoodoon anigu hayn baad haysaa markaa de waxay kala adna cilmi baan hayaa oo waxyi baan haystaa adna mid baad haysataa isku soo dhici mayne maad iska daysi nebiyullaahi muuse wuu degdego wuxuu idhi laba arrinba waad iga heli lababa waan kuu yeeli kow waa marka koowaade satajidunii in shaa allahu saabiran horta marka koowaad ilaahay hadduu doono nin adkaysi badan oo waxaayoo dhanba u adkaystaan noqon laba walaa ucsi laka amra talena kugu diidiba maayo labadaaba waad iga heshaa waxaad tidhaahda yeelna diidi maayo waan u hoggaansami midda labaadna nin adkaysi badan inaan ahay baad iga heli buui
intaa markuu yidhi wuxuu yidhi haddaba Khadir waa macallinkiisa maaha ardaygii wuu isku dhiibay keenaduu dhigtay wuxuu yidhi saa doonta iigu tali waa adkaysina waan la iman taladaadana diidiba maaye adaan ku dabagelay taadaa maanta arrinkaaga arrina cilmigaagaa cilmi ah saasuu yidhi soo maa Khadir uu dardaara wuxuu yidhi haddaba muusow fain ittabactanii haddaad imankaba i raacdid aniga afka juuqa iga odhan waxba hay weydiin ilaa intaan anigu kuu warramaayo anigoo kuu warramo mooyaane adigu waxba ima weydiin karaysa cilmiga iska kororso un ila soco un wuxuuna iga faa'iidayso laakiin waxa ay weydiini waxba hay weydiino waxa weeyaan kolba maxaad u samaysay maxaad san u yeeshay ha odhan nebi muuse wuxuu waad iga heshaa intaa marxaba wuxuu xadiisku tilmaamayaa waa la dhaqaaqo waa la socday xeeligii badda ayaa la socday sidii badda dhinaceedii loo socday ayaa waxaa soo martay dooni baa soo martay doonidii waxaa dhulkan lagu yaqaanaa Khadir baa lagu yaqaanaa dhulkan degandii dadkana waa dad dhulka ka ganacsada markiiba Khadir bay garteenoo intay doonidii u joojiyeen bay qaadeen saddexdoodiiba way qaadeen markaasaa doonidii bay ku qaadeen fakallamuuhum an yaxmiluu halkaabaa inoogu dambaynaysa yuushac lasoo hadal qaado halkaana jamcun baan ka fahmaynaa waxaa leeyihi way la hadleen doonidii markaasaa an yaxmiluuhum inay qaadaan waa jamc soo maa saddexdoodiiba waa la qaaday markay doonidii raaceen weliba siday axaadiistu tilmaamaysaan waa soomaaligeeniya biqayri noolin nool la-aan bay ku qaadeen innagaa nool odhan jirna soo maha waa facrag xadiiskii nebiguna waa sidaa nool la-aan bay ku qaadeen buuri nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaan Khadir bay garanayaan bilaa nool bilaa mushqaayad waxba kamay qaadin kiro bilaa kira yidhahdeen fuul way raaceen doonidii markii waxoogaa la saarnaa ee layskala socday baaba waxaaba markiiba fajiciso noqday Khadirunbaa intuu sara kacay unbuu faash qaatay doonidii unbuu loox bartankiiya unbuu qac ku siiyo looxii unbuu fujiyey doonidda hoostii la dalooliyey soo biyuhu ma soo gelayaan nebiyullaahi muuse wuu adkaysan kari waayo wuxuu idhi war maxaa ku qaatay uhi sheekhow maxaa kugu dhacay ma waxa weeyaan doonida maxaad u daldaloolinaysaa ma lituqriqa ahlaha baa laqad ji'ta shay-an imraa buu yidhi wallaahi buu yidhi ma ina dadkeedaba qarqiso ood daadka raaciso ood biyaha hafisaad ugu tala gashay wallaahi wax adag baad la timid buuri markuu sidaa u hadlay nebigu wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa kaanat اluulaa min muusa nisyaana boodistaa horuu nebi muuse booday ilow bay ka ahayd buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin kuwa dambe wuu u badrheedho inuu munkarka radiyuu doonay laakiin tan hore iyadu yacni war iskama hayn war la-aan bay ahayd isagoo ismoogaan wuu kaco markaasu yidhi war sidaad leedahay ka joogso ma ragga bilaa noolkay nagu soo qaaday wanaagay noo galaad xuma ugu beddelaysaa waxaad la timid arrin qalloocda uu ku qayliyey waxaa cajiiba intii yarayd nebigu sidoo xadiiskiisa ku tilmaamaya saxiixa waxaa doonida girgirkeedii fuulay shimbiro markaasuu biyihii dhag ka siiyuu 2 jeer cantuugay markaasaa Khadir baa ka faa'iidaystay taasoo wuxuu yidhi Khadir maa cilmii wa cilmuka min cilmi illaahi tacaala ilaa midla maa naqasa hada alcusfuuru min hada albaxr muusow anigu cilmigaan leeyahay iyo adigu kaad haysato iyo ka uunkao dhan iba haysta haddii laysku wada kiciyo ilaahay cilmigiisa haddii la garab dhigo shimbirkaasi dhagtaa uu biyaha ka siiyey intaa ilayna ilaahay cilmigiisa kama dhimayna buuri ee muusow miyaanan ku odhan afka juuqayga odhan hayla hadla nebiyullaahi muuse wuxuu yidhi bas buu yidhi bas loo noqon maayo wuu u cudur daartay dib dambayse waxba ku weydiin maayo doonidii baa laga dhaadhacay dhulkii baa loo tallaabsado berrigii baa loo baxay wiilal yaryar oo ciyaarayaa ka soo horbaxay ku yaroo qurux badanoo dee si fiican u koray ayuunbuu intuu Khadar soo qabtunbuu qoorta ka gooyay tana waa ka daran naf dhanoo iska nooloo qoortu laga jara marka waran markaasaa nebiyullaahi muuse intuu qayliyey buu idhi
أقتلت نفسا سكية بغير نفس وارمحاكو قاتل من نفتهرا أون دنب لهين أو الميرأة أو يد دليسا يدو نفو دلينا آنيترين لقد جئت شيئا نكرا وارواح هم بعض لا تبدو أرين حن أوفول حمو وين أيات سمايسي عقود خضر وارميانا كورن إلى سعون كريميسيد ميانا كورن مركز النبي الله موسى وحوري بس بول إيه عذر دار ما أنت دب دنبيسا هدان wax ku weydiiyo halka inoo kala dhamaatay waa la socday sidii loo socday sida xadiisku tilmaamay reer baa la martiyay reerkii qolaba khayliinay noqdeenoo martidii bay ka seexdeen waxba weysii waayeen habeenkii gaajay ku seexdeenoo waa la qadiyay subaxii markii la soo kacay ayaa wuxuu Khadir arkay gidaar janjeer sameeyo inuu duma sigay aqal dumaye buu arkay dumaye markaa uu war soo kaco wastaad baaba laga noqdiyo kuuli aqalkii baa ku kaco uu toosiyo dhisuu hagaajiyay nabiyullaahi muuse wuxuu yiri Khadirow maragii xalay cunto la'aan inagu seexiyay ee bakhayliinta ahaa ee ina qadiyay ayad adna guryahoodii dhisaysaa haddaan anigu adiga ahaan la san yeeli lahaa waxaan ka qaadan leeyd buuri mushqaayada ragga baad mushqaayad noo weydiisay low shita la takhadta alayhi ajra mushqaayad baad ka qaadan leeyd buuri oo ka sameyn leeyd wuxuu yiri Khadir hada firaaqu bayni wa baynika urdaar daba ma jiro ballankeenu wuxuu ahaa inaanad wax dambe ay weydiin haddaad weydiisaneen halka inoo kala dhabaatay halkaas aynu ku kala kaxayneynaa laakiin buuri muusow waan ku faa'iideyno cilmigi aad fahmi weyday wuxuu yahay baan ku sheegay markaas halka cilmigiiba حديث كأنت إلى أنت بنكون جوتشين هبين بقى يبين قادن ما مركب فهمني واحد فهمي إن هالكن علمي وين بفهمين لبق شخصية إسراعي بينه أركينا لبضها شخصية إسراعي بدون نبي الله موسى من نوع عبدا بإله أضون إلهي أدوميسا كمدا وخضر سؤال شو وحي طيب mid madaxay aad ugu cuslaan oo markaynu dhaana Khadar nabi ma ahayn laakiin culimada inta badan waxay leeyihiin Khadir wuxuu ahaa nabi buu ahaa Khadir nabiyullaahi Muuse nabi buu ahaa Khadirna nabi buu ahaa maxaa adilla waxaan cadayn doonaa darsigeena dambeeynu ku cadayn doonaa wixii adilla ay haystaan oo dhan culimada bandha waxay leeyihiin wuxuu ahaa abdan saalihan buu ilaahay ولي بوها الدون إلهي بوها إلهي بكرامسي يقولون وحي هايستان بان إيجدونا لكن وحي نفهمينا إنه الصعودو الدون إلهي بصعودا وحي كلون ميشا كتشوابي دونا قولادي الصوفية دي هل كانوا يركسوا سركة عيسالها علم الظاهر يبادي باكرة يعني دادعين ايسي بل علم الظاهر يبادي كودنا الدرسي قدمين نكو أركي دونا إن شاء الله تعالى لكن وحي أي تاي مركزي بل آيات كقيب تورورتا إنه قاضنا قال تعالى ربي سبحانه وتعالى وحوليه سبحانه واذكر حسن بالله إذ وقت حس قال أوري موسى نيموس لفتاه ويل كيسي أخدمين يوشع ابن نون كويري لا أبرح كسول مايو إنا صعنايو حتى أبلغ إلى إنتان قاريو مجمع البحرين هل كي كل ميان لبد بيو أو أمابا أمضية أن صعنايو حقوبا قيال بدن أن صعنايو سندب بدن أن صعنايو هل كان مجمع البحرين هرتو إنو فاني سببتي نبي موسى وسعني وعلمي أدون كإلهي ودونني ويل كنا ويتصارعين لكن إله كان تجيبوني مجمع البحرين هل كان لبض بضاد كل مان إلهي القرآن كيسوي حولي مجمع البحرين حديث كنا يحولون مجمع البحرين لكن ده يأتاجي لدتك تذكر إن مجمع البحرين كيف فهمان بيدونيا وهالكي سمع المغرب wax alliyaala wixii nagaga maqani ma jiro halkay labada badood ku kulmaan ilaahay baa garanaya badahaas waa meel laba biyo ku kulmaan ilaahay baa og
inta haddaan ku dayno wax cilmi oo nagaga maqani ma jiro laakiin culimmadu markay hoos u sii qodqodeen inay yidhahdeen majmacu lbaxrayn waa halkeen dee meelun bay tilmaameen bada meelo ay ku kulmeen miyaad waayi meelo ay bada ku kulmeen unbuu midba meel u dhoweeyey markaynu soo qaadno ibnu caashuur iyo raggaas waxay yidhahdeen mufasiriinta bar waxay yidhaahdeen waa madyaqu jabalu taariq waa meesha la yidhaha mandiqat waa danja meesha la yidhaha danja waxa weeyaan waa meeshan morocco amba yani almamlaka almaqribiya halkan la yidhaha morocco dhinaceeda waqooyi markaad eegto magaalo yaroo ku daaloo danje la yidhaha weeye oo xagga kalena maxay ka saarantahay sbain bay ka saarantahay sbain marka halkaasaa la yidhaha madyaqu jabalu taariq waa halkaa sbain iyo ay ku kulmayaan iyo morocco halkaa ay ku kulmayaane cidhiidhiga yar weeyaan maxaa ku kulmaya halkaa waxaa ku kulmaya baddii mediterraneanka la odhan jiray amba baxru labyad almutawasit iyo badda la ydhaha atlantica ku kulmaya labadaa badood baa ku kulmaya waa atlantigii iyo baxru labyad almutawasit oo markaa iyadana midda waxa la dhaha muxiid aladlas baa la ydhaha af carabi waxa la dhaha baxru labyad almutawasit iyo muxiid aladlas laatiniga marka la eegana waa atlantica iyo mediterraneanku halkan ay ku kulmaan waa halkaa sbain culammada bar badan baa leh halkaas uu ahaayo majmacu lbaxraynku waa halkaa waa halkii ay saxaabaduna de yurub uga tallaabeen kaas waa mid ibnu caashuur wuxuu leeyahy iyo sayd qudbi iyo raggan dambe mufasiriintuna waxay leeyihiin maya xaggaa nebi muuse xadiiska u soo dhoweeyey wuxuu socday maalinkaa iyo habeenkeedii dhulku ma dhaafayo eriyadii amba mandiqadii uu ku noolaa nebiyullaahi muusa markaa majmacu meeshan waaba siinaaba kama dheera bay yidhahdeen majmacu lbaxraynkani waxa weeyaan bay yidhahdeen baxrulurdun nahrigan la yidhaahdo yani baxrulurdun amba nahrulurdunkan iyo baxrulaxmar oo qulsuma halkay ku kulmaan oo markaa waa maxay waa meeshan ayliya caqaba la ydhaahdo gacanka yare ayle iyo caqaba la ydhaahdo ee de dhulkii nebi muuse ku dhow halkaasaa habeen iyo maalin ah halkaasaa socodka nebi muusena uu ku sar jaran yahay bay leeyihin iyagu culammada bar waxay leeyihiin waa nahrulurdun iyo dabariya buxayradan yaree la ydhaayo waa isla eriyada un iyaduna oo waa halkaa agteeda un qola waabay ka sii durkeen oo waxay idhaahdeen waa maxaanku dhahdaay dheereeba oo waa baxrulaxmar baddan cas iyo indian oceanku halkay ku kulmaan adigu waa baxrulfaris iyo baxruruum dee haddee biyo meel ay ku kulmaanba waa la dhameeyey qola waxbay ku tilmaantay laakiin alcilmu cinda allah ilahay wuxu uhi meesha labada badood ku kulmaan maxay nagaga lumaya waxba meel laba biyo ku kulmaan ayuu nebiyullaahi muuse halkaasuu uhi ilaa halkaa aan gaadhayno buuhi ilaa halkaa aan gaadhayno waa socday marka ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu leeyihi falamaa aw amdiya xuquba aw amdiya amba aan soconayo xuquban guyaal badan xuqabka waxaa laha 80 sannadood iyo 70 sannadood iyo adu waa wakti dheer weey ilaa intan weligay waa saasoo kale halkay dhow ka naana ilaa intan weligayba soconayo ilaa intan wakti dheer soconayo marka culimadu waxay dhahaan xuqubku waa 80 sannadood iyo waxaa weeyaan almuhim ilaa intan wakti badan soconayo weli wakti badan aan soconayo falamaa markii balaqaa ay gaadheen majmaca baynihimaa halkii labada biyo kulminaayey nasiyaa waxay halmaameen xuutahumaa kalluunkoodii kalluunka ay qada u siteen bay ku halmaameen halkaasay ku iloobeen oo siday u halmaameen kalluunkii baa si axaadiisu tilmaamayaan biyo yar baa ku soo duulo caynulxayaat waan ka warrami doonaayo ka soo dhibcay wuu noolaaday saxarii buu socday biyihii buu gaadhay biyihii halkuu kaga dhacayna wuu dalooshaday faاtakhada wuxuu yeeshay sabiilahu jidkiisii fi lbaxri badda dhexeeda u sii maray saraban hulo amba dalool amba jeex weyn buu ka samaystay buli rabbi subxaanahu wa tacaala biyihii iskumay iman daaqad baa ka furantay halkii falamaa markii jaawasaa ay ka gudbeen ay ka tallaabeen halkii ballanku uu ahaayo ilahay yidhi halkaa baad ka helaysaan nebi muuse daal buu dareemay daalkana waxaa kutusaya qaala wuxuu ku uhi lifataahu wiilkiisii aatinaa inoo keen hadaa'anaa qadadeennii inoo keen cuntadeennii inoo keen
لقد وحادب لقينا إن كلاكلني من سفرنا سعود كنا هذا كنيا نسبا دال بان كلاكلني بس تنبان هي إنه كان نصنون قديني وحصوصتي يوشع وحيدعي قال وحدي أرأيت بليغا ورا الموس إذ وقت إنما ذي حصوصا بليغا ورا أوين أن هرقلني أن أضمني إلى الصخرة رجحي حلقا أن هرقلني أن أضمني إنما ذي حصوصا فإني أنكم نسيت وحان إلوبي الحوت كلونك إن كاغا ورمو وحي أسمي أو إنه نورادي إنه غرغورتي إنه بدي غلاي إنه بدي قد كفرتي إن كاغا ورمو وان إلوبي وما أنسانيه إمانها المامسين إلا الشيطان مويه وحكى لإمه المامسين إذا بتوحى كم إذا وهي الشيطان إلا طيري إلهي أمطيرين شيطان باني إلو سيب شيطان أيها إيقو عقل عياري أو إيقو بديي أو إلو سيو المامسي أن أذكره إنان كو شيغو أن حصو أن وحي دعي كورمو شيطان باي إلو سيي أن أذكره لك يعني انت مركولي واتخذ وحو ياشي موسى سبيله ودديسي ومراي في البحر بدا دحديده عجبا ياب وسميستي عجبا ياب وحما كاغا او بيه بو كلا جيحي قال وحني موسى ذلك كاس ما كي ويه كنا انا هين نبغي كوربا سدا بان ربنبا halka baan u soconay fartadda way soo rogaal celiyeen way soo laameen ala aatharihima raadkoodii bay ku soo dulaameen iyagiyo qasasa yaani soo guraya qasasan iyagiyo raadkoodii soo guraya ayay soo laameen bi rabbi subhanahu wa ta'ala raadkoodii bay dib u soo gureen hadib bay u soo gureen fawajada waxay heleen halkii bay ku soo laameen dhagixii bay yimaadeen xadiisku wuxuu tilmaamay adoon halkii iska duuduuban oo iska laaban oo iska hurdo u yimaadeen fawajada waxay heleen abdan adoon min cibaadina adoomaha iyaga kamida kaasoo ataynaahu aan siinay raxmatan naxariis min cindina agtayda aan ka siinay naxariis aan siiyey wacallamnaahu aan barnay min ladunna agtayada cilman aqoon aan ka barnay buli rabbi subxaanahu wa tacaala waa adoon naxariis baan xaggayga ka siinay waxaan barnay cilmi baan barnay qaala lahu wuxuu ku yidhi muusa nabi muuse qaala wuxuu ku yidhi lahu adoonkii khadir ahaa muusa nabi muuse hal attabicuka ma ku raaca calaa an tucallimanii inaad i bartid mimaa kii cullimta aad ogaatee lagu baray rushdan hanuun iyo toosnaan wixii lagu baray inaad i bartid ma ku raacaa qaala wuxuu yidhi innaka adigu muuse lan tastadiica ma awoodid maciya aniga la jirkayga sabran adkaysi iyo dulqaad innaka adigu lan tastadiica awoodi maysid maciya aniga la jirkayga sabran adkaysi xamili maysid wuu cudur daaraya wakayfa sideebaa tasbiru ugu adkaysan calaa maa shay lam tuxid aanad koobin bihi isagaba khubran war cilmi iyo ogaal waxaanad ku koobin siaad ugu adkaysan waxaanad fahmaynba siaad ugu adkaysan wey وكيف سيبا تصبر وصبري على ما شيء لم تحد به آنت كوبين خبرا ور آنت كوبين قال وحور موسى ستجدني وادي هلي إن شاء الله إلهي هدو دونه إننا صابرا مد أتكيست أحمله ولا أعصي كون ديدي ما يلك أديك أمرا تلو ولا أعصي كون ديدي ما يلك أديك أمرا تلو قال وحور خدير فإن اتبعتني هدادي الراعديد هدبا فإن اتبعتني هدادي الراعديد فلا تسألني هاي ويدين عن شيء وحبا حتى أحدث إلى أنت نكون عسبونيسين أيو أنكو ورمي لك أديك منه إساق ذكرا شيء يور أنت نكاغا ورمي شوخ هاي أوران فإن اتبعتني هدادي الراعديد فلا تسألني هاي ويدين عن شيء وحبا حتى أحدث إلى أنتان كو عسبونيسين يوم كاغا ورمي لك أديغا منه أرنكا حقيسة ذكرا شيقيد فانطلقا ويسعودين حتى إذا مركي الركباء فولين في السفينة دوني
خرقها ودلاعي لوح بفجي فلما مرك فانطلقا ويسعدين حتى إذا مركي ركبا أي فولين في السفينة دوني خرقها ودلاعي لوح قال عنيبوس حاكو قاتي خضيرو أخرقتها مياد دلاعيسي لتغرق سيادو هلاكتو دو قرقسيد أهلها أهل كده والله بان كل دارتين لقد وحا نبا جيت إنا لتمد شيئا شيء إبرا وين إمرا وين شيء وين بعد لتمد إمرا عظيم وين شيء وين بعد لتمد قال وحولي ورلو حيدا فوتشناي يدويها نكو عيار يددك إسكدافو ألم أقول لك ميانانكو ألم أقول ميانانكو أوران إنك أدقو لن تستطيع كريميسيد معي أنيقا لتشيركيغي يلا صعود كيغا صبرا حملاد إيا أتكيسي يلن ميسيد ميانانكو أوران قال وحولي موس لا تؤاخذني هايقبا بما كي نسيت أن إلوه نسياني إلوه هايقبا هايقا فايديسان إلوه ولا ترهقني هايقو درقين وهايقو عصلين من أمر كيغانا عسرا عليس هايقين ورده وانكو صور راعي ماشا هايقو أدونسان إنو هاي عدادين إنو عليس يقدو القاد بولي عليس يهن شباد يقدو القاد وحولي ولا ترهقني هايقو درقين هاي حنبارسين وهايقو سندولين من أرن كيغا عسرا عليس هايقين هاي فضايدي فانطلقا ويسعودين حتى إذا مركي لقيا أي لكل من هدنا غلام ويل فقتله دلي قال وحول نبي موسى أقتلت ورميادي شيء ما كانوا ضريده نفس النفس سكية ظهرا بغير نفس النفلان وحي قلب سطيده ونجرين مياد قيسي لقد وحى نبا جئت إنا الله تمد شيئا شيء نكرا قرار بالله تمد وحى الله تمد أرين آذو فول حموين أن لا أتكيسن كريم بالله تمد نبي الله موسى ولو جوابي وحى لي ورسوني كوري شو خيورا ها معكو قاطي مركب الآيات كان سنو لفتنا وحوجا وقاضنا آيات كانت دي بين سكدول تاجدونا درسينا ضمن إن شاء الله تعالى لكن ماشي محن كفايدة سنين وحنا آيات كانت دان سكدول تاجنا كفايدة سنين علمي كاستقول لاذي إن أنا دي سعجبي ورين ليس عجبي وهذا الأقوان حتى إسبيدايسو إن أدقوا بترى ريرك أنيجا أقولون وحبون معها هل كني موسى كرب توادق أركي وإن ذوح علم عند الله وحنا نتكلم أن ترى الله أعلم هذا قرط يأكل وحول بواد قرن يساوي أقول إنهم بعض هذا إن مليه أنت هذا هنا كجواب أنت أنا الله هنا ده الله أعلم مسكله حد اللي يقول هذا وريا ريرك أورونها ده ريرها جاء أنا أنت إذا بالله إيطاليا ولا يجروا يسكت بالقولي ما كأنه الحجاج ولي بالقرآن ده اللي يرتهم كوا حبة شربة رجع أنت علم إسبادين علماء دي هراي الصحابة هبل داقة كتور كاور كيس حبة كبتشرو كاسوا هل كان مكدعي كان كلا سيدان مري خطر أبى صوب بحياة أفكود بالنار تبغى وقرين يبى وحول بس يصير استجاب يسكوا يست أو علمك كسيح وعيو واستجي الشيخ يسوع بصح وإنكار كلا صومه هل كان محلنا بريا ورادو أنت تقرن يسون ده أنت أنا تقرن إن بهرت ورئيسه قف كلام حال علمي هيساعده وحو يلا وحو واصلا ما حد كتير ده ما حد دليل ما حد شيء ما حاجات كأنتي سؤال كلارت علمي كلا برا لكن ترى ما كاوحي سوا حبك ما ترى كا ده ترى وعني بهرت واحد عجبي قال لي ده هرت هنا نسكيل على إنه آيات كون كفاية سنة نيم وصادق أركي وحكون عاي أرض يبود النقطة صومها مركزها عدادي سيا هول يدب يشد يسلع بأمره وهذه أركية لبا وحين فهمنا إن تهاد حب الاستطلاع إن دينتي إن الأقوين يلتين وأنا تكون فكرتي وأنا واحد يدين وأنا الأقوين يلتين هذه علم ما الله وش يقول أم بقى وحكاد ما يهين إن هذا يقول إسكارسي سيسوي نيم وصبلاك قام بوجارو حري هذا السنة ده يقول قاضنا السنة إلى علم جاء أن كسر عن صوت هابطو شوكسن ما يسمع وأنا ديالتي دي همي جا وأنا ديالتي تنكره وأنا تكون داشين إن دوح براتي إن تكون داشين وي وحكلون كفاية إذا سننا قفك وحبرية يقفكم علمي جبرانية إذا بتو ذكر كم ذا أو معي ده وحن كفاهم إن قفك معلن كها إنه قفك عذر دارو وشيء علم لبتولي
iyo culayskiisa iyo warkiisa kan wax baranayana waa inuu u nasteexeeyo waxaanu qaadi karin waa inuu sheego xataa marka waxa la yidhi dadka waxaad ugu sheegtaan calaa qadri cuquulihim intuu caqligoodu xambaari karayo dadku waxaanu caqligooda xambaari karin haddaad ku sii daysid dee waxaad noqon ninkii galiilee la gubay oo kale yidhi dhulkaa wareegaya ku bilaabay dhulkuma wareegaye jinka madaxaaga ku jiraa wareegaya la yidhi shaydaanka kugu jira soo maha dee halkan baad ku dambayn doontaan horta dadka calaa qadri cuquulihim uga warran waxaanay dadkani qaadi karayn haddaad maanta olel ku shubtid dee waad wareerinaysaa markaan waxaan ka faa'iidaysanaynaa waxyaale aad u fara badan baan ka faa'iidaysanaynaa qofka wax baranaya xataa inaanu degdegin oo nebi muuse degdeg kolba ku dhacaya waxa ka dhacaya oo adiga arkaya xataa cilmigaad baranaysid degdegana ka ilaali ha degdeg uu daran yahay markaa bal aayaadka iyo axkaamtaana darsigeenna dambeyn intuu ilaahay noo qadaraan isu taagi doonaa wabillahi tawfiiq wallahu aclam bisawaa'ihi marjuu